isku soo noqdana arday maanta insha Allah waxaan dhigan doonaa jabtarkeeni baynoos cuntabkeeni lixaad baynoos socon doona hadii alla idmo aljabra maanta waxaan dhigan doonaa casharkeena afraad hore waxaan soo dhiganay saddexdii cashar oo ka horeeyay cashar koowaad cashar labaad cashar saddexaad maanta waxaan noqonay afar insha Allah وانا cutubkeeni min wali ku jirnaa aljabra casharkeena afraad insha Allah waxyaalaha ku arki doono waxa kamid ah xog saari doono isreynta tibxa aljabrada wax la yiraahdo been arki doona hadii waxa kale arki doona isreynta saableyda gaarka ah sida loo furfuro iyagana insha Allah arki doona sidoo kale isreynta saabley wax la yiraahdo iyadana qaacidada leh hadii alla waan arki doona hadii la yiraahdo dhamaadka casharkana natiijooyin kale ka filiyo waa kuwan intaas ba aynu ka shaqeyn karno filin karno hadaynu sii socono isweynaha ay wadaagaan tibxaha tusaalaheena koowaad hadaynu isweynaha ay wadaagaan tibxaha aljabra tusaalaheena koowaad hadaynu aragno waxaan haysanaa labaxa oo lagu daray 14 waxa la yiraahdo waa maxay isree inta isree baa leeyahay إن أرجنا هنيري الزرين لبحة أو لقول دري أفريت أنت زين يسنا أنت زرمنا إنينو الزرين هذه له يجرى هذا سينو أنت وزرنا وحلنا على كم حنو يلا لبحة على كم حنو يلا أفريتون ولا بتبحر labada tibxood ee aljabrada waxay wadaagi karaan ama xarfo ama nambaro waxa ka dhaxayn kara waa maxay ama xarfo sida xa ya iyo wixii lamid ah ama nambar caadi hadda labada maxay wadaagaan laba xa oo lagu daray 14 horta wax kama dhaxayo wax xaraf ah maxay yala halka xaraf kuma jiro waa tiro caadi ah abiyona caadi tiro caadi ah haysano halkana waa maxay waa laba xa sida daraadeed waxa ka dhaxayn kara muxuu noqon karaa halka waxa qaybin karta labo halkana waxa qaybin karta labo sida daraadeed isirka ay wadaagaan labada tiro waa labo maxaan ka saareynaa marka waa labo labadan aan ka saarnay waxaan waa qaadanaa waxaan u qaybinaynaa labada maxaan dhahaynaa laba xa oo loo qaybiyay labadii aan ka saarnay isirka maxaan ka saarnay waa labo sida daraadeed maxaan u qaybinaynaa waa labo maxaa isla baxay xa iyo xa waxaan ka wadaa labo iyo labo halka maxaa kugu soo haray halka waa hal lagu dhiftay xa loo qabi hal waa xadeedi oo lagu daray isla kan baa qaadaysaa sababta maxaa u qaybinaysaa 14 maxaa leedahay 14 loo qabi waa isirka ka saarnaa marka soo qaybinaya loo qaybiyay labo 14 marka laba loo qabiyana waxayna soo baxaya 7 halkaan waxayna taallay blasteeni sida daraadda waxa leenahay halkaan waxayna soo baxay 7 maxay leeyihiin talaabada koowaad maxaynu qaadaynaa waxaan leenahay labada tiro waxaan eegaynaa labada tibxood maxaa ka dhaxaya markaan ogaano labada tibxood waxa ka dhaxaya waan ka saareynaa kadib tibx kasta waxaan u qiimeynaa gooni su'aalaanteena hadda waa laba xa lagu daray 14 waxaan ka dhaxaya laba qaado waxa u qiimeynaysaa laba xa laba iyo laba isla goon meesha waxaan ku soo haray xa isna labada qaado 14 u qiimeyn maxaan ku soo haray 7 keenayna ku xiga ba maxaan haysanaa 4 B oo laga jaray 12 ba xa intaas aynu haysanaa maxaynu raadinaynaa isirka waa isreynayna maxaynu leenahay waxaan soo sheegay labada tibxood waxa ka dhaxayn kara ama xarfo ama nambaro tirooyin ama labadu waa ka dhaxayn karaan saayna maskaxda ku xidhan sida daraad halka maxaa ka dhaxay horta halka waa 4 kama dhaxayso horta maxay halka kuma jirto laakiin b waa ka dhaxaysa ay b waa garan xarf waa ka dhaxayaan maxaa inta ka dhaxayn kara halkan 4 baa ku halkan waa 12 4 12 loo qayb waa qaybin kartaa sida daraadeed waxa ka dhaxayn kara wuxuu noqonayaa waa 4 ba qaad baan ku yiri oo tibixda koowaad u qayb maxaan leenahay 4 ba oo loo qaybiyay wixii aan ka saarnay inoo ah 4 ba la waxaan ogaanay 4 ba ka dhaxay maxaa isla baxaya 4 iyo 4 soo saar waa laba tir maxaa soo saarnaa ba iyo ba halka maxaynu ku haray waa ama a kor waxaynu ku haray hoosna waxaynu ku haray waa hal ay internet waa isla bixin
sidaa daraaddeed halkan maxaan kusoo qoraynaa waa e oo lagu daray misna intan qaado intaa u qayb maxaan leenahay 12 xaba oo loo qaybiyey intaan ka saarnay maxaan ka saarnay 4 ba 4 u qaybi waa hal 4 u qaybi waa 3 ba iyo bana waa isla go'an halkan maxaa ku haray waa 3 3 ku dhufo waa 3 loo qaybiyey hal ilaa hal ba ku haray halkan maxay noo soo baxaya markaa 3 xa isirka inoo ka baxay wuxuu noqday 4 ba aynu qaadanay waxaan u qaybinay 4 ba bay noo soo haray misna 4 aynu qaadanay waxaan u qaybinay 12 xaba waxay noo soo haray 3 xaba ka saddexaad si maxaynu haysanaa 6 xa 3 jibaaran oo laga jaray 3 xa 2 jibaaran oo lagu dhuftay ya intaas inaysan maxay leenahay labadeedna tibxood maxaa ka dhaxeeya nambaro iyo tibxood ah waynu eegaynaa marka koowaad waxa ka dhaxayn kara halkan xa waa ku jirta halkan xa waa ku jirta yes way ka dhaxayn karaan waxa la yiraahdo xarfo maxaa misalada ku xigi kara tirooyin ka dhaxayn kara 3 iyo 2 maxay noo ka dhaxayn kara marka 3 waa ka baxaysa horta هيا هلك صدق مركز لوجو هلك نواو غيب سنتا هيا محينا كل حين كده حرفنا محينا كل حين كده ولا بحق حق لبى جبارن هيا هلك وحنا كوجر لبى صدق حق هلك نحن كوجرته لبى حق ساس من كل حين كده أنت مركز صوره الله يونا كده هيا صدق حق لبى جبارن وإحنا نقاضينا أنت نقاضينا هاو غيبنا أنت ليه حق صدق جبارن لو غيبي صدق انت اسا سوغاين hadaynu saddex u qaybin halkan waa hal saddex u qayb waa lab haye halkan waa laba xa halkan waa saddex xa labada xa maxay la go'aysaa laba xa oo kale sida daraadeed laba xa la go halkan maxaa ku soo haray hal xa ila halkan waa laba xa halkan waa laba xa laba jibaaran halkan waa xa saddex jibaaran waxay la go'day xa laba jibaaran meeshii marka maxaa kugu haray xa ilaa sad waxa la yiraahdaa xa saddex jibaaran waxa ka timi xa lagu dhuftay xa oo lagu dhuftay xa lagu dhuftay xa oo lagu dhuftay xa oo loo qaybiyey xa laba jibaaranna maxay ka timi waa xa lagu dhuftay xa xa iyo xa isla go'an sidoo kale xa iyo xa isla go'an halkan maxaa kugu haray marka waa hal xa sida daraadda halka waxaynu ku soo haray halkii xa kugu harana maxaa ku dhufanaysaa labadaas waxa ka timi halkan saddex u qayb waa hal saddex halkan u qayb waa labo saddex halka waxay noo noqonaysaa laba xa oo laga jaray isla intan qaado inta inuu ku qayb intaan maxay noo leeyahay saddex xa laba jibaaran oo lagu dhufto waayo loo qaybiyay saddex xa laba jibaaran saddex iyo saddex isla go'een xa laba jibaaran xa laba jibaaran isla go'een halkan maxaa ku warwaaya hal hadii lagu dhuftay yaana waa ya'deedi isna wixii noo soo baxay intaas سؤالهن كوان ساسين أو حلين أنسي سؤال سؤالهن لبعض أنت سؤالهن لبعض جدين واحد ربعنا إن الحسوسية وحير هدي أساسين أو قرآن تاي لبعضين النمبر waxaan ku furfuri karnaa labada number waxaan u fududeyn karnaa markaynu fududeynayno waxa la xa waa a laga jaray p iyo b iyo lagu daray b ama tanaan habka noqon karta ama tanaan habka u fududeyn karnaa taawayna maskaxda ku haysid marka halakan waxaan ka filaynaa numberkaas waa inuu noqdaa number laba goor marka isku dhafto laba jibaarkiisa aynu helayno tusaale numberka halka ka filan wuxuu noqon karaa 3 lagu dhuftay 3 ama 4 lagu dhuftay 4 ama 5 lagu dhuftay 5 6 lagu dhuftay 6 macna numberada laba jibaarkooda halkan kama filan inuu noqdo halkan oo kale 5 oo kale because 5 kama iman laba number oo laba jibaarkooda aanu garanayno tusaalahan
laakiin hadda halkan waxaynu 3 lagu dhufto 3 maxay noo soo baxayaan waa 9 halkan 4 lagu dhufto 4 maxay noo soo baxaya 16 5 lagu dhuftay 15 6 lagu dhuftay 6 maxay noo soo baxay waa laba number la jibaarkeeda garanay laakiin halkan hadduu noqdo 5 ma garanayo laba number ay ka timid su'aalahan 5 lagu dhufto 5 kale oo kale number laba jibaarkiisa inoo keenaya sidaa daraadeed haddaynu numberkaas oo kale haysano saas oo kale oo a laba jibaaran oo laga jaray b laba jibaaran halkan waxaynu noqon karaa xaraf halkan waxaynu noqon tiro caadiya su'aalaheena koowaad ma rabaa inaynu aad u fahno si inuu ku fududaado tusaale markaan haysano tusaaleheenaas maxaynu haysanaa numberkeena koowaad isiree marka layna yiri isiree maxaynu haysanaa eed maxaynu haysanaa xa laba jibaaran oo laga jaray 9 soo ma arkalka taasina aad u isticmaali doonto waxay leedahay tan xagee ka timi xa laba jibaaran kana xagee ka timi waxa la yiraahdo 9 waxay ka timi 3 laba jibaaran inta markaa garatid xagee fahamkanay kugu noqonaysa bahashaad macna qaabkanay ku ekaanaysa qaabkaana waxaan u furfuri jirnay waa xa lagu daray 3 iyo xa laga jaray xa lagu daray 3 ma xa laga jaray 3 iyo xa lagu daray 4 maxaa kale aynu u qaadan karnaa haddii saas oo kale noqoto su'aal ahaan haddii aragtid oo kale haddaan su'aalo kale kugu daro oo ku fududeynaya yani saas oo kale haddii ku noqoto maxaa leedahay xa laba jibaaran halka waa laba jibaar saas oo kale aragtay oo lagu isiree waxa leedahay xa laba jibaaran xagee uu ka yahay waxa la yiraahdo 4 xagee ka timi 4 waxa ka timi 2 lagu dhuftay 2 sida daraaddeed waxaan leeyahay 2 laba jibaaran qaabkaas oo kale markaa u furfuranaysa waxa leedahay xa laga jaray 2 iyo xa lagu daray 3 tanoogaas rabaa inay kugu fududaato aysan culaysa kugu noqon qaabkaas raacaysa markaad furfuraysid halkan waa inuu ku noqdaa number laba jibaarkiisa helaysid kasta lagu markastana waa lagu siinaya aan sii socono isla numberkeenu ku xigay iyada b-deeda muxuu inoo yahay 14 oo lagu daray 49 ka haddaynu haysano haddii aragtid inaad isiraysid waxaa leedahay laba number oo marka la isku daro ku keenay 14 marka la isku dhuftana ku keenay 49 maxay noo noqon karaan laba number oo marka la isku daro ku keenaya 14 marka la isku dhuftana ku keenaya 49 labada number maxay noo noqon karaan maxaa weeye 7 iyo 7 ku dar waa 14 isla labada number baa isku dhufanaysaa yani 7 ku dhufan waxay soo baxaya 49 waxay leeyahay markaa xa labada number baynu marna waa ku daraynaa labada number halka inoo yaala baynu markasta mid kasta xa ku daraynaa maxayna marka waad laba number oo inoo keenaya 14 marka aynu isku darno marka isku dhufan inoo keenaya 49 laba number isku darno marka inoo keenaya waa 14 markana waa 49 mid kasta xa gooni ugu dar kana xa ku dar labada number kana xa goonidiisa ugu dar kan ku xiga su'aalaheena ku xiga maxay haysanaa ra laba jibaaran oo laga jaray 6 ra oo lagu daray 9 haye waxaan leenahay laba number oo marka la isku daro la kala jaray inoo keenaya 6 marka la isku dhuftana 9 inoo keenaya maxay noqon karaan labada number waxay noo noqonayaan -3 iyo -3 labada number haddii isku calaamadii mar way isku darsamayaan maxaa ku soo baxaya -6 haddii laba tiro minus la isku dhuftana maxaa ku soo baxaya tiro plus nasala socod laba minus haddii isku dhacaan waxay soo baxaya tiro plus waa kaas sidaa daraaddeed waxaan leenahay xa laga jaray -3 iyo xa laga jaray -3 saas ku noqda isirayntiisa marka aynu isirayno isaga su'aalaheena ku xiga waxaan arkaynaa insha Allah kan aad ugu dhow su'aalaheena saddexaad waxa la yiraahdo furfurista sabley oo inuu ku qoran habka halkan oo ka muuqda ama inuu leenahay xa waa ee horgolaa xa laba jibaaran oo lagu daray xa oo lagu daray c kan waa horgolaha ee waa horgolaha xa laba jibaaran b na waa horgolaha xa iyo numberka halkan oo yaalo oo abiyoonaha inuu helayno su'aalaheena haddana furfur baa leena yiri select su'aalaheena saddexaad buu yahay furfur أنا يفرفرنا تبي هذا كله
tusaalahaan number koowaad maxaynu haysanaa tusaalaheena koowaad xaa laba jibaaran oo lagu daray 9 xaa oo lagu daray 20 kiiba aad ugu dhowyaa waxaan leenahay laba number oo marka aan isku darno 9 ku keenaya marka aan isku dhufanana ku keenaya 20 maxay noo soo baxayaan in labada number waxay noo leekaanayaan oo 4 iyo 4 lagu daray 5 waa 9 4 lagu dhuftay 5 maxay noo soo baxaya waa 20 labadeen number inoo ku bedel xaa halkaan waxaynu marna 4 xaa ku dar marna waxa ku daraysaa marka labada number soo heshid mid kasta waxa ku daraysaa xaa taas ku noqonaya furfurta selectin kaynoo ku dambeeyo inuu ku xiga isna maxay noo yahay tusaaleheenna ku xiga waxaan na laba jibaan oo lagu daray 3 na oo laga jaray 4 oo laga jaray aan ka wadaa 40 waxay leeyahay laba number oo marka la kala jaro la isku dar ku keenaya 3 marka la isku dhuftana ku keenaya minus 40 maxayna soo bixi karaan labada haddaynu dhahno waxaan u xisaabtan tirada la soo baxday waa laba number markii la kala jaray maxaa ku soo baxay balaa 3 oo jeedalka marka tirada labada tiro markii kala jarmayaan labada tiro markii kala calaamadiin way kala jarmaan tirada weyn calaamadeeda la qaataa sida daraaddeed waxaan niri waa 8 oo balaas ah iyo 5 oo minus ah labadan tiro way kala jarmayaan waxaan la qaadanay tirada weyn calaamadeeda oo ah 3 oo balaas soo baxaya halkeen oo yaal labada tiro marka la isku dhufto tiro minus iyo tusaale tiro plus ah macni tiro ku dar wadato tiro ka jar wadato marka la isku dhuftana waxa soo baxaya tiro minus ah tusaale hadda 8 marka lagu dhufto 5 maxaa soo baxaya minus 40 marka labadeen tiro soo helnay oo si ay noo yihiin waxaan leenahay na lagu daray 8 si fiican qoro labadeen tiro maxaa soo baxay waa 8 plus ah iyo 5 minus ah marka waxaan leenahay na lagu daray 8 iyo na oo laga jaray 5 labadeen number baa midna wuxuu noqday 8 iyo 5 markaynu kala jarnay waxay noo soo baxay balaa 3 oo tirada weyn bay calaamadeeda qaadanay 8 daa weyn marka isku dhufanana waxay noo soo baxay minus 40 labadeen number marka waxa ku dartaa na marna ka jar adoo calaamadahooda eegayay wixii meeshaas ku yaala intaas layliskeeni bayna ku xiga hadii aan leedmo layligeena koowaad furfur selectan laba number oo marka la isku daro ku keenaya waxa la yiraahdo 5 marka la isku dhuftana 6 ku keenaya ayna si fiican maskaxda uga shaqeysiisid wixii ku noqonayaan kan ku xiga waa laba tiro oo marka la isku daro la kala jaro ku keenaya 5 marka la isku dhuftana ku keenaya 15 labada number waa inaan helno kan ku xiga waa isre ka koowaad kale qaacidada isticmaalina tan aad u isticmaalaysaa dabagalka tan aad u isticmaalaysaa ka ku xiganaya labada damana waa idinka waa isla isreynta in arkeen habka aynu uga shaqeynay aad ba u mahadsantihiin casharkeenina maanta halkaas inuu ku eegay